ku dalabto maasha Allah waa markasto productivity-gaagu haan yahay maasha Allah ID-gaaga laba CC baa ku qaadatay labadaas CC maxaa laga rabaa retail yani inaad maasha Allah aad sii iibso sii tafaariiqayso producti oo sii tafaariiq ka sii hesho lacagta oo daily income-kaaga aad ku bis karayso qodobka labaad uu qaybsamayna waa personal use adigoo inaad isticmaasho marka yani halka CC ama labada CC bisha ID-gaaga ku qaadanayso waa inaad qaybna iibiso macmiilkaaga siiso qaybna adigu waa inaad isticmaashaa markaad adigu isticmaasho waa marka ay horumarayso waxa loo yaqaan productivity hadaba goorma la gartaa sidee baa lagu cabiraa qofka yani productivity inuu leeyahay bil kasta inta CC uu qaatay inta ugu yar uu qaadan karo waa 2 inta ugu badan uu qaadan karo inta ugu yar uu qaadan karo waa 4 inta ugu badan uu qaadan karo waa 4 iyo wixii ka badan dabeecad ka dhiga marka يعني adigoo awooday inaad team samayso oo dad cusub aad diiwaan geliso waa inaad dabeecad ka dhigataa ID-gaaga iyo lacagtaada iyo tafaariiqda faa'iidadii kaaga soo baxday mar labaad inaad ku celiso waxa loo yaqaano act for active CC saadaraadid qofku markuu ID-giisa kaliya ku qaato marka CC wuxuu ka mid yahay smallest incentive ka gaari ee lagu bixiyo smallest incentive waa maxay waa hadiyada ugu yar ee company-ga laga qaato maasha Allah waa markuu qofku isagoo ID-giisa ugu yaraan 4 ama 5 CC ku qaato waxa la siiyaa waxa loo yaqaano furayaal baa la siiyaa waxa la siiyaa some productive pocket loo yaqaano waxa la siiyaa garamaan yani waa incentive-ka ugu fiican oo qofku maasha Allah uguna yar oo qofku ku guuleysan karo waxyaabaha qualification-ada ay kamid tahay marka saadaradeed hadaad awood u leedahay inaad bil kasta dad cusub qorto haba ku tashanine waa inaad samaysaa for active CC ID-gaaga qodobka ugu dambeeya for core evaluation-ka kamid waxa loo yaqaan development wala leeyahay waxa weeyaan downline motivation yani teamkaaga inaad motivate karayso oo hore u socdo tira oo dabada aad ka wado oo maasha Allah ul daba qaadato oo shaqeeyo aad tiraahdo ayaa lagaaga baahan yahay saadaradeed adigu haddaanad motivate karaysnayn yani de teamkaaga ma motivate karin kartid ay ka dhigan tahay so downline motivation waa inaad u samayso downline-kaaga motivation waa inaad u samayso dhiirigelin u samayso qorshaha la dejiso hadafka tusto hamigooga meel sare aad ku xidhaal rabaa downline motivation marka maasha Allah isna laba kala qaybsamaan waxyaabaad ku motivate karaynaysa maxaa kamid ah for core balance afartan aan ka soo warramano qof kasta teamkaaga waa inaad ku baraarujiso oo ka howlgalo for core balance-ga waana for core balance uu ka howlgalo oo mar kasta maasha Allah aad yani qofka motivation u samayso motivation-ka laga sheekeynayo ma aha inaad qofka dhiiri geliso ka kac hore u soco xadiisada inaad akhrido looma baahna laakiin wuxuu kaaga baahan yahay casharadu kaaga baahan yahay baa la rabaa qofka inaad tusto ama yani shaqadiisa uu ku qabsado kaasa loo yaqaan marka sidoo kale muxuu noqonayaa in aad ku dhiiri geliso ada levelka selling-ka iibinayaan yani teamkaaga bisha mid kamid ah haduuna waxba soo iibin waxna sii iibin yani waaba riski weeyaan saadaradeed bil kasta maxaa la rabaa inuu wax soo iibiyo sidoo kalena uu sii iibiyo that time qofku markuu taa ku dhaqmo waxa loo yaqaanaa maxay maasha Allah waxa loo yaqaanaa development baa loo yaqaanaa horumari marka development-gaaga waxaad u horumaraysaa development-gaaga sidaad u horumari lahayd yani adigu naftaada markasta horumari development-gaaga oo qorshaha koobaad oo waxa ugu weyn waa shaqada ugu weyn ee qabanayso waxaa loo yaqaanaa development-gaas loo yaqaanaa okay for core evaluation waa afarta waa recruitment retention productivity and development for core evaluation taas loo yaqaanaa isku qiimee markasta for core evaluation-kaagu inuu yahay isku qiimee markasta evaluation-kaaga iyo shaqadaada iyo nidaamkaaga inay tahay mid aad iyo aad u sareysa isku qiimee markasta afarta tiir shaqadaada inay kamid tahay haddayna afarta tiir shaqadaada kamid hayn yani dhibaato ayaa ku imaanaysa okay haddaba chain-ka koobaad iyo chain-ka labaad waa isku xidhan yihiin waxa loo yaqaan recruitment iyo retention chain-ka saddexaad iyo ka afraadna way isku xidhan yihiin waxa soo horeeyay chain-ka afraad waxa ku xiran maasha Allah waxa loo yaqaano chain-ka saddexaad waxa soo horeeya chain-ka ugu dambeeya development plus productivity qofka marka development aad u samayso adigana waxa laga rabaa productivity recruitment iyo retention iyagu ma kala go'i karaan saadaradeed prioritize-ka samaynaysa waa maxay waa recruitment waa retention waxa loo yaqaano development and productivity saasay horta qaab ahaan iyo caadi ahaan ay iskugu xidhan yihiin marka aan arrinka laga hadlayo maasha Allah shaqada ugu weyn ee ugu ballaaran aad qabanaysaa afartan inaad dar yeesho afartan inaad ka warhayso markasta shaqadooda iyo nidaamkoogana sidii aad u qaban lahayd falowgeyga aad gasho productivity marka afartaasiba si way u siman yihiin mid ka maaranta ma jiro hal chain oo ka maaranta ma jirto chain-kaas marka muxuu noqonayaa maasha Allah mid haddaad ka booddo laangana tahay ka dhigan tahay marka productivity yani waxa lagaaga baahan yahay wax soo saarkaaga inaad soo bandhigto
like seed soo bandhigaysaa wax soo saarkaaga waxaad u soo bandhigaysaa wax soo saarkaaga maasha Allah wixii aad soo iibsatay alaabihii aad soo iibsatay ayaad gurigaaga ku soo bandhigaysaa yani waa shay u dhigmo oo kale wixii la oran jiray business product launch waa shay u dhigma waana aad samayso gurigaaga markasta wax soo saarkaaga aad ku bandhigto waa markasta productivity-gaagu uu aad u sareynayo waxa loo yaqaano oo aad u sareynayo haddii ay aad go'aansato marka productivity-gaagu inuu aad u sareeyo oo qorshaha aad qaato productivity-gaagu inuu aad u sareeyo waxaad gashaa qorshaha ah inaad noqoto soo bandhiga qurux badan soo bandhiga habaysan oo alaabtiisa soo bandhiga gurigiisa ku soo bandhiga start from marketka ugu horeeyay wax ka bilaabaso waa gurigaaga weeyaan sadaraadid ma sha Allah gabadhan hadda idin muuqata productivity-ga soo bandhigaysa waxyaabaha qabatay nidaamka qabata ay u sharaxaysaa halkan sidoo kale waxa idinka muuqda waxa loo yaqaano yani productivity baa idinka muuqda sadaraadid markaad wax soo bandhigayso laakiin structure-kaas oo kale inaad soo bandhigtaa laga rabaa markaad soo bandhigayso saddex talaabaad qaadaysaa your style retail client and preferred customer saddexdaas qaadaysaa your style yani dadka hortoodaad ku isticmaalaysaa alaabtan iminka halkan waxaa idinka muuqda gabadh isticmaalaysa forever iyo ferragel gacartiiba isticmaalaysaa maasha Allah soo maxaa laga rabaa markaad productivity-gaaga soo bandhigayso inaad isticmaasho alaabta laba your client inaad la wadaagto isticmaalka adiguna isticmaalaad ku tira tusaale ahaan maasha Allah anigu malabkii waan dhadhamiyey malabku aad buu macaan yahay ila dhadhamiya maasha Allah si uu retail-kaagu u noqdo yani ay kaaga iibsadaan wax soo saarka markay arkaan way kaa iibsanayaan moogtahay sadaraadid waliba haddii dhadhamiyaan way kaa iibsanayaan ama shayga ay isticmaalaan sometimes marka maxaa la rabaa yorka isaad retailkii ugu horumarayso maxaa la rabaa markasta inaad wixii ila sameeya tiraa ila dhadhamiya inaad tiraa ila isticmaala inaad tiraa xabad saabuuna hadiyad aad u siiso soo isticmaala inaad tiraa waxaasoo dhan maasha Allah waxay ka qayb qaadanaysaa yani qofkan kalsoonidiisa iyo nidaamkiisa shaqo ayay ka qayb qaadanaysaa markastoo adigu aad horumarayso nidaamkaaga shaqo waa markastoo yani shaqadaada maalinlaha ah aad qabsanayso ayay ka dhigan tahay taa markaan ka imaado maxaa la rabaa haddana prefer customer يعني inaad samayso prefer customer laba macnay noqotaa mararka qaar waxa weeyaan marka koobaad inaad macmiilkaaga ku xidho page ama inaad ku xidho yani meel shaqo ama website ama yani groupka alaabtaad ku iibso inaad ku xidho sidoo kalena inaad reference siiso ayay laga baahan yahay labadaas shay way noqon kartaa inaad yani customer-kaaga waa qayb kamid ah customer care-ka prefer customer-kan waa qayb kamid ah customer care-ka markastoo samaynayso markaa customer care maxaa laga rabaa maasha Allah inaad u daabacdo alaabaha inaad u daabacdo shaqadooda inaad u daabacdo nidaamka alaabta ku iibsanayaan productivity maxaan ku cabiranayaa marka productivity-ga waxaan ku cabiranayaa how do we measure productivity inta active CC aan qaatay active aad adigu ID-gaaga ku iibsatay ku cabiranaysaa your active CC aad ID-gaaga aad ku iibsatay ay waxaad ku cabiranaysaa waa cabirka koobaad ee ku cabiranayso maasha Allah waxa loo yaqaanaa maasha Allah cabirka ugu hooseeya qaadan karto minimum-ku waa maxay yani waa 4 case credit 4 CC inaad qaadato waa inta ugu yar aad samayn karto waa inta ugu yar shaqo aad ka qaban karto waxa loo yaqaanaa 4 case credit sidoo kale يعني واي أنا سمينا 4 case credit يعني وأنا أروح بدن قاعدته ووح مركز يعني العقد بدن عاد سواء كشو صدر هذا وحنو قاعدنا يو وحيقول كل فينا قاعدته هل شيء you in more يعني العقد بدن قاعدنا سا أو بالله العقد بدن أو بالله أيات قاعدنا سا صدر هذا ما دام العقد بدن أو بالله قاعدنا يسوع ما شاء الله وين تسميسو يعني وابحي مركز أي دقيقة أنت تكون يبستها أي بطو يعني وحي تفاريق الكاس وقلي أي بدنايو markay bataana macne yani lacagta ku soo galaysa aad ayuu fara badan tahay marka cabirkaad qaadanayso waa ka tusaale ahaan halkan waxa idiga muuqda 35 ilaa 40 retail product yani alaabta tusaale ahaan assistant supervisor ilaa manager markaad u dhaxayso waxaad u dhaxaysaa qiimo dhimista ah 35 ilaa 48 markaad ku soo iibsato adigu alaabta qiimo jaban oo customer price kana aad ku iibiso yani waxay noqonaysaa wax badan ayaad qaadanaysaa yani ugu yaraan masha Allah lacag fara badan ayaa ku soo galaysa tusaale ahaan marka maxaa laga rabaa qodobka labaad waa use the product adigu isticmaal how seen isticmaalaya list all the products you use yani dhamaan productyada isticmaashay oo dhan waa inaad list garayso yani mid kasta waa inaad samayso marka yani waa inaad siiso mid kastaba 1 point tusaale ahaan waa evaluation-kii waan ku jirnaa wali iyo san isku qiimeynay ayaad samaynaysaa tusaale ahaan maasha Allah haddii aad isticmaashay oo alaabaha isticmaashay ay 15 yihiin midkiiba point aasisay waxay noqonaysaa 15 point sadaradeed waxa tahay distributor haysta darajada excellent yani ma sha Allah nin waxa tahay 100% ka war haya alaabta company-ga oo isticmaalay ugu yaraan 15 product oo inta daily use-ka u badan isticmaalay baa tahay haddii aad isticmaasho 10 ilaa 14 very good baa tahay haddii aad isticmaasho 5 ilaa 9 yani ma sha Allah ma xuma
haddii aad 0 ilaa 4 yani haddaad xataa 4 product isticmaashay wax badan baad lose garaysay ka dhiganta wax badan oo dadka aad u qaban lahayd you missing out more weliba saa daraadeed waxa dadka ku helaysa waa intaad alaabada isticmaasho haddaad is leedahay niyo anigu wax badan ma helo oo tiim fara badan iyo macmiil badan fara badan ma helo waxba badan ma isticmaashid bay ka dhigan tahay yani waa inay suurta gashaa bildan inaad forective cc-ga alaabtaad kusoo iibsato adigoo aad isticmaasho markay badato waxaad isticmaalayso waa markay badato macmiilka alaabta kaa iibsanayaad helayso taasna waa qodob insha allah retailku waa maxay see retailka ku horumarin karaa waxaan ku horumarin karaa one to one conversation yani hal qof inaanu la kulmo asxaabteeda jaarka asxaabteeda jaamacadda asxaabteeda waxbarashada islaamiga asxaabteeda cibaadada asxaabteeda goobaha jimicsiga maasha allah waxyaabahaas oo dhan inaan one by one conversation aanu la yeesho sidoo kalena online-ka inaad ku iibiso khaasatan page-ka loo yaqaano FLB 360 oo company-geenu iska leeyahay sidoo kale maasha allah inaad mar kasta samayso inaad tusto alaabtii registration aan showing inaad tusto alaabtii aad yani meelaha la iskugu yimaado aad u qaadan karto taasina waa saas maasha allah prefer customer inaad samayn karto yani some maasha allah customer care aad waraaqo u daawacayso aad samaynayso inaad productkaada isticmaashay ku sheegayso aad samaynayso inaad alaabtaada kusoo bandhigayso waxay qabato iyo faa'iidadeeda taa markaynu ka nimaadno maasha allah retailkan intaasaad ku qiimeynaysaa marka score yourself how many waxaad ku qiimeynaysaa how many one to one conversation aad la yeelatay per week how many invite your FLB 360 per week follow up with the customer intay ligbad macmiilkaaga ka warhaysa per week give yourself 1 point mid kasta marka yani waxa loo yaqaano progress number do you know progress number waa means 1 2 3 4 mid kasta waa each point inaad samayso waxa ugu badan priority-ga kuwa 1 priority-ga ka ku soo xiga 2 hadaa tahay waxaad gudagelaysaa waxa loo yaqaano prioritize activity oo dibas ay u kala sareyso ayadu kala qaadaysaa taa markaan ka nimaadno insha Allah taala hadda waa cabirkaad qaadanayso waxa weeyaan masha Allah 15 masha Allah haddii aad one to one conversation 15 qof aad la yeelatay excellent baa tahay one to one conversation haddaad la yeelatay 14 yani waa very good baa tahay one to one conversation haddaad la yeelatay 5 ilaa 9 ma xumid bay tahay spoiler more hore u socod lagu leeyahay hore u dadaal in badan afar intaa you missing out inaad wax heshay iska daayo read adaa wax luminaya cabirka noocaasa measurement-ga noocaas waa inaad qaadataa recruitment walaalayaal maxaa loo yaqaanaa waa personal sponsor dad cusub inaan diiwaan gelino oo dad cusub yani shaqada aynu ku soo darno ayaa loo yaqaanaa recruitment-gaas seen ku cabiranaya marka maasha Allah prefer customer-kayga yani keys credit how many keys credit ayay yani maasha Allah team-kaygu ay iibiyeen means 5 qofood bishii hore samaysay ayaa mid kastaba wuxuu sameeyay 10 cc saa daraadeed waxa loo yaqaan recruitment-igu 10 qof markii sameynayaan yani dad cusub ay keenayaan bay ka dhigan tahay marka your excellent waa tahay active case credit ka soo qaadasta minimum ku sameyn karo 1.5 why aad u sameynaysaa your time and in multiply waqtigaaguna uu level laabmaya lacagtaad qaadanaysaa maasha Allah way level laabmaysaa waa qodobka looga dan leeyahay taas tusaale ahaan tusaalaha walaalayaal ku cad waa maxay maasha Allah multiply your time and in more yani tusaalahan waxa weeyaan adigu bishan waxaad shaqaysay yani bishan oo dhan maalin kasta waxaad ka hawlgalaysay company-ga 10 saacadood good laakiin bishan waxaad tahay hal qof oo kaliya 10 saacadood baad ka hawlgashaa 10kii markaad ka hawlgasho isla bishan 10kii saacadood waxay dhaleen 5 qof inaad diiwaan geliso assistant supervisor 5 qof oo assistant supervisor markaad diiwaan gelisay 5tii qofna bishii kale waxay shaqeeyeen mid kasta oo iyaga kamid ah maalin kasta wuxuu shaqeynayay 10 saacadood marka maalintii waxay ka dhigan tahay content team-kaaga ka imanaya adiga 10 ka imanaya 60 saacadood maalin kasta waxaad shaqeynaysaa 60 saacadood bishii markii dhamaato 60 baad 30 ku dhufanaysaa intaasaad shaqaysay 5tii bishii hore aad keentay bishii dambe waxay keeneen 5tiiba mid 5 buu keenay maasha Allah marka 5 lagu dhuftana 25 bay noqonaysaa 25 qof oo min 10 saacadood shaqeeyeen waa 250 saacadood waxaad u geysaa 60kii saacadood 310 saacadood 25kii qof ee bishii hore aad maasha Allah team-kaaga ahaa mid kasta wuxuu keenay 5 qof 5 marka 25 lagu dhufto waxay noqonaysaa 125 marka lagu dhufto yani mid kasta 10 saacadood shaqeeyo 1250 saacadood 1250 saacadood waxaad u geynaysaa 310 saacadood waxay noqonaysaa 1560 saacadood sadraadeed adigoo maalin kaliya 10 saacadood shaqeynaya ayaa waxaad u dhigantaa nin shaqeynaya 1560 saacadood 24 marka loo qaybiyo waxay noqonaysaa maalinkiiba inaad shaqeyso muddo 4 bilood ma fahanteen saasa laga wadaa marka you in waqtiga time-kaaga multiply garee waxaad qaadanaysaa waxay noqonaysaa multiply maasha Allah taa waxaad ku horumarinaysaa marka
ka developing contact waa inaad contact garayso oo horumariso contactiga personal contact mobile contact educational contact family and friend contact general population contact geographical contact waxyaabahaas oo dhan baa loo yaqaan develop garee present opportunity fursadaada soo bandhig mar kasta sidoo kale helping new FPO waxaa la samaynayaa inaad caawiso waxa loo yaqaan new FPO cusub inaad caawiso ayaa la rabaa saa daraadeed maadaama la rabo new FPO cusub inaad caawiso waxay noqonaysaa hal qodob inaad ku caawiso new FPO-ga waxaad ku caawinaysaa waxa weeyaan developing contact waxyaabaha aad contact garaynayso ayaad maasha Allah aad ku caawinaysaa yani inta how many team aad leedahay waxaad ku contact garaynayso ayaad ku caawinaysaa taa markaynu ka nimaadno waxa contactigu ku sahlayaa personal sponsoring yani inaad samayso maasha Allah inaad samayso personal sponsors maasha Allah how many contact per week opportunity percent per week FPO sponsored at last 6 months new CC at last waxay give yourself if which point 15 hadii gaadho excellent keep hadii 14 ilaa very good hadii 5 ilaa explore more yani saasa cabirkaad qaadanaysa isku cabiraysa waa ka retention walaalayaal waxa loo yaqaanaa maasha Allah yani in dadkii hore sii shaqeeyaan means how many percent active for CCFPO imisa qof ayaa active sameeyay for CC bishan oo teamka kamid ah and how many percent FPO who have ordered in more than 1 month يعني ما شاء الله imisa qof imisa percent ayaad ku cabiran kartaa FPO-ga adiga ku hoos qaran kuwaas oo order cusub sameeyay dan walma yani in ka badan bil oo bishii u horeeyay iibka qaadanayn bi sameeyeen mise bil kasta waa sameeyaan ay ka dhigan tahay markaynu ka nimaadno ma sha Allah tanaad ku cabiranaysaa marka tusaale ahaan January wuxuu qaatay ma sha Allah qaatay hadii ay bil kasta dhacdo inuu qaato yani December marka la gaaro waxay noqonaysaa 4 hadii marka uu bil kasta laba qof uu qorayo tusaale ahaan oo labada qof uu qoro bil kasta ay laba qof ay qorayeen oo labada qof uu qoray hadana bil kasta ay qorayeen waxay iskugu soo fadhiisanaysaa 2400 oo CC bishii markaan xisaabinay waxay iskugu soo fadhiisanaysaa 2400 oo CC yani awood waxaad u leedahay bil kasta inaad ka qayb gasho waxa loo yaqaano German Bundesliga awood waxaad u leedahay inaad ka qayb gasho dalxiisyada heer caalami ee waaweyn inaad ka qayb gasho awood ayaad u leedahay markaas taas ka dhigan tahay ما شاء الله FPO 2 CC buu qaatay another month kii 2 ga qaatay another 2 buu qaatay kii kale another 2 ما شاء الله sanadkii marka waxay noqonaysaa inaad sanad kasta wax hesho jeegaaga adigoon isdibin inaad hesho ay noqonaysaa ma sha Allah bro ab yani waa inaad ku samayso oo retail calendar-gaaga how many imsa tafaariqaysay aad ku samayso retail new FPO imsa dad qortay cusub ayaad isku qiimayso taasna waa qodobka retention for active CC and repeat purchase FPO يعني bil kasta waa inay sameeyaan waliba ay ku soo celiyaan hadana repeat shaqadoodu waa maxay hadana repeat markasta inay sameeyaan development-ga ugu dambeeya walaalayaal waa maxay waxa loo yaqaan ma sha Allah sidaad ku cabiran kartaa development-ga yani development hadda markaan soo marina waxa soo sheegnay downline motivation-ka waa inaad habit uga dhigto for active CC downline motivation-ku waa inaad barto casharada kaasa motivation loo yaqaan motivation kuma ahay development-ina dhiirigelin halkan la soo fadhido kelmado caraabin ah aad samayso ma aha waa inaad iyaga labada qodob ka adkaata waxa loo yaqaan ma sha Allah saasa loo yaqaan okay ma sha Allah yani waxay ka mid yahay waxyaabaha ku develop garaynayso level investment and incentive yani how many team-kaaga level bedelay how many incentive ku guuleystay sidoo kale qualification your group ما شاء الله qualification ay team-ka haystaan mise dhibcood bay yani haystaan how many car plan ba team-ka guuleystay how many German bonus how many eagle manager how many supervisor how many assistant manager how many assistant supervisor how many nafis customer how many customer how waxaas isku qiimeynaysaa marka tusaale ahaan saacadaha shaqeynayso depending on waxay ku xidhan yihiin working hours waxay ku xidhan yihiin monthly income-kaagu wuxuu ku xidhan yahay personal group income kaagu wuxuu ku xidhan yahay leadership income personal group income hadduu bato leadership income kaagu badanaya saa daraadeed hours depend on monthly income depend on personal group income depend on leadership income taana wayna fahanaa saas iskugu xirxiran yihiin marka maxaa laga rabaa marka plan iyo goal baa laga rabaa waxaa laga rabaa ma sha Allah inaad encouragement u samayso waxaa laga rabaa inaad badiso oo ma sha Allah shaqadooda activity-gooda aad libin laabto waxyaabahaas ayaa laga rabaa sidoo kale ma sha Allah how many sideebaad markaas u qiimeynaysaa ma sha Allah planning session FPO per month training meeting with ma sha Allah
mise meeting ayaad gashay with FBO Bournemouth. FBO in your group qualification for incentive how many? Masha Allah, give yourself each point. Haddaba excellent self 10 ila 10 point, excellent keep out 5 to 9 very good, 0 up to 4 you are missing out. saa daraadeed maasha Allah recruit and for core evaluation ka lagu sheegay oo afarta waxa weeyaan recruitment, retention, productivity and development. saa daraadeed walaalayaal dhammaan leaderska codkayga hadda maqlaayo yani waa inay ku tababartaan oo cashar ka dhigtaan oo shaqadooda iyo nidaamkooda ay ku wadaan waxa loo yaqaano afarta qodob. afarta qodob haddaad ka dhisanto proactive CC ku dhibaya ma jiro. afarta qodob haddaad ka dhisanto any challenge ka hor imanaya ma jirto. afarta dhidib ee businesskeena u yeelana waa afarta. insha Allah waxaan rajaynayaa ilaahay inuu nagu anfaco insha Allah tacaala, khayrkeygana ilaahayna siiyo, sharkeygana ilaahayna garab mariyo. wixii su'aala insha Allah tacaala maadaama waqtigu noo harsan yahay casharo kale iyo presentationna kale iyo follow up kale aan isku diyaarinayno intaasaan kusoo gabagabeynaya insha Allah. waxaad moodaa inaan waday presentation tababarka 35 minute 5 minutes baa inoo hadhay almost 10 minutes. waxyaabaha su'aalaha aynu kaga jawaabno haddii ilaahay qadaro meelaha ay qofka iska galeen wixii su'aale la qabo ala soo daayo biidni illahi subxaana wa tacaala insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم. wixii su'aal walaalayaal insha Allah. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها سفي عوا إيه مقلة يا ملينا. سفي أنا أكون مغلى. والله لا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو ولا إن شاء الله وحي سؤال يحيسو. وحي سؤال يحيسو ولا إيش سويت إن شاء الله. ولا لا إن شاء الله. waxaan rajaynayaa dhammaan leaderska codkayga inay maqlayaan walaalo waqtigu waa inagu socdaa insha Allah.